سلام الله عليكم صاحبيال سو دhowaada dhamaantii meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kasta idin tahaba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo su'aal runtii aad u xasaasiya oo bulshada dhexdeeda ku soo laalaabatay oo waxa ay shariicada islaamka iyo diinteena suubani ay ka qabto ku shaqaysiga ama ku ganacsiga xirfadda suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex trading runtii mawduucan maaha markii ugu horreysay aan ka hadlayo laba jeer oo hore ayaan marna su'aalo iyo jawaabo dhexdood kaga hadlay marna si yar oo kooban aan mawduuca uga hadlay hasaatee labadii fiidiyoba waxay raaceen fiidiyoyo badan oo YouTube-keena ka baxay ayay iyaguna raaceen waxaan doonayaa inaan muuqaal dhammaystiran oo barnaamijkan si faahfaahsan uga hadlaya aan in muddaaba soo duubo hasaatee duruuftii waqtiga oo yaraa awgeed ayaan fursad u waayay waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaalkan oo mid isaga u gaar mid mawduucan u gaar in aan geeso badan kaga fiirino waxa ay shariicada islaamku iyo diinteena suubani ay ka qabto ku ganacsiga xirfadda forex trading waxaan soo qaadan doonaa qayb ka mid culimada Soomaalida iyo culimada aan Soomaalida ahaynba ee inoo sheegaysa in suuqani uu xalaal yahay haddii aad u martid sifo waafaqsan shariicada islaamka sidoo kale waxaa jira sheekh weyn oo ay Soomaalidu aad u dhageysto la yiraahdo Sheekh Umal oo jooga Nairobi Kenya oo isagu muxaadaro dhan ka qabtay barnaamijkan waxaynu sidoo kale isla daawan doonaa muuqaalka uu sheekhu kaga hadlay barnaamijkan qodobada uu sida gaarka u taabtay ee uu ku durayo forex-ka ee uu leeyahay qodobada darteed forex lagama shaqaysan karo sida uu isagu u fahmay ama sida ay dadkii sheekhu u warramay u fahamsiiyeen iyo sida saxda ay tahay ayaynu fiirin doonaa hase ahaatee inta aynu ku mashquulin sheekha iyo khudbadiisa gaarka aynu fiirino culumada kale ee ka hadashay forex ee wax laga weydiiyay inay iyagu yaqaanaan forex iyagu soo baareen amaba ay ka shaqeeyeen diinta islaamku waxay ka qabtana iyaga ay dhinacooda ka fiirinayaan culumada noocaas ee barnaamijkan loo bandhigay waxna laga weydiiyay waxa kamid Sheekh Usmaan Usuli oo sheekh runtii fiqih kana tirsan majmaca waxa la yiraahdo fataawul Yurub ama majmaca culumada reer Yurub sidoo kale ka tirsan majmaca culimada guud ee caalamka ayaa su'aashan la weydiiyay Sheekh Usmaan Usuli intii aan aqoon ama aan hore u maqal waa sheekh Soomaalida dhexdeeda aad looga yaqaan Universal TV ka soo gali jiray barnaamijyo su'aalo iyo jawaabo ay dadku wax ku weydiin jireen sheekha waxa su'aasha forex si toos u weydiinaya nin kale oo asna culimo oo magaciisa la yiraahdo Sheekh Axmed Jawhari oo Ingiriiska degan oo Soomaalida social media si fiican u taqaano oo isaga laftirkiisu forex ka shaqeeya qaybna ka Axmed Jawhari oo Sheekh Usmaan Usuli weydiinaya diinta islaamku waxa ay ka qabto forex hadalkiisi waxa kamid sida tane bal aynu wada daawano mas'aladii ku saabsanayd inay dadku ka shaqaysan karaan sidaan sheegay forex all life Herbalife Amazon shirkadahaas oo dhan ee internetka laga shaqaysanayo maxaad oran lahayd sheekh si ay dadku u xoroobaan hanti u sameeyaan xaqatan aniga laba shirka all life kaas iyo forex-ka waa soo baaray waa arkay oo waxba ka sameeyay qoladan all life oo dahabkii wax gadayaan all life-ka wax oo sharci ka hor imaanay kuma arag waa fiican yihiin qolada kale sidoo kale qaybta xalaal ayaa jirta oo forex-ka laftigooda oo qaybtan raaficada ka bixiyay badiilka ay jirto marka dadka inay ganacsadaan kuwaanaya markasta ganacsi kale maahane ganacsiga shuruudihi aan soo sheego inay ka ilaaliyaan wax ribada inay ka ilaaliyaan su'aasha cid weydinaan cid ahaato mutaqassisa cid oo research sameynaysa oo soo baaraysa inay iska naqaan mid hawraac iska naqaan kuwaanaya ilaahay waxaan ka bari dhamaanteen xaq inuu noo tusa waxaad arkaysaan in uu sheekhu yiraahday forex waxa jirta qayb xalaal oo aan sharciga ka hor imaanin sidoo kale ganacsiyada kale ee xusay oo sheekhu su'aasha ku lamaaniyay iyagana wuxuu yiraahday wax sharciga ka hor imaanaya maarad hadaba diinta islaamku ama diintii ugu dambeysay ee suubanayna lagu soo dejiyay sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed way ka duwaneed diimihii ka horreeyay nabiyada waxaa loo soo dhiibi jiray fariin ku saabsan inay dadku bartaan ilaahay iyo sidoo caabudi lahaayeen balse nabigeena waxaa loo soo dhiibay fariin ka ballaaran intaas oo quraanka iyo diintu waxay noo sheegtay sida nolosheena noolaan lahayd quraanka iyo diintu waxay ka sheekaysaa sida lacag u shaqaysan lahayn lacagta shaqaysanana xalaal ahaansheeda iyo xaaraan ahaansheeda waxay ka sheekaysaa wax walba oo diinteena ku saabsan arrintaas ayaana sabab u noqonaysaa in markasta oo mawduuc cusub oo noocan oo kale oo bulshada dhexdeeda soo baxo in la isla dhexmaro su'aalo iyo jawaabo diintu maxay ka tiri diintu maxay ka qabtaa haddaba su'aashaas weydiintu waxay tahay shay sidaan oo kale cusub oo waxa la yiraahdo quraan toosa ama aayad toosa
oo forex ka hadlasa aysan jirin xadiis toosa oo forex iyo sarif ka hadlaya aysan jirin marka mawduucna aan kala soo baxo waxa isweydiin mudan yaa ka fatwoon kara qofkee ayaa ka fatwoon kara su'aashaasna waa isweydiin jiray muddo badan hase ahaatee sheekh axmed jawhar ilaaha barakeeye oo isla su'aashaas weydiinaya sheekh ismaan masuuli wixii uu yiri bal aynu aragna markii la weydiiyey yaa sheekh yaa ka fatwoon kara wax sidaan oo kale u cusub ama bulshada dhexdeeda shaki badan ku abuuraya currency-ga sarifka forex-ko kala ka mid waxay ku leeyihiin culimada qaar way xaaraantinimeeyeen qaarna way bannaan way fasaxeen dadkeenna waxay ku wareereen marka fatwada halkee loo doonanaya fatwadase iyaa fatwo bixin kara تفضل شيخ. نعم طبعا فضوضه مركي اللي بحنا وحليها الفرع عن شيء فرع تصوري فضوضه نينك فقيهي او ارنتاس تخصصي ايا بحين كره مده كلنا waxay ku xirantaa fadwada naftigeeda ninka su'aasha ku weydiiyay su'aashiisa ayaa ka horeysay inta xukunka la sheeginba marka waxa laga yaabaa in dadka marka ugu horeysay inay ka fiiraan hal jaanib camal islaamkana ma yaqaan wax kasto xaraan ah qamrada waxa la leeyahay idaa taqallalat binafsiha waxa la xalat qamra ahayd hadii qal isku bedesho xalaal ay noqonaysaa islaamka marka suuqoodu waa furan yahay adduunka iyaga naftooda ganacsi intaasoo balaayiin muslimiin ah joogto wali dad qaliijiin oo lacag lahaa jira marka waa ogsoon yihiin gaalada naftooda wixii xaaraanta ka marka haddii nin markuu yimaado oo fatwo ku weydiiyo sheekh waxaa la doonayaa inuu sheekh oo ninka siiyo bedelka inuu xaaraan ku ekaysto maaha inaga mushkilada waxa waaye ninaa imaanayo hadafkiisa waxaa laga yaabaa hadafkiisa inuu yahay ganacsi uu meel ka soo waayey wuxuu rabaa sheekha inuu orku kacsado oo u tuslay kaliya wuxuu sheegaa wax xaaraanta wuxuu leeyahay forex-kaas oo kale waxaa la jigeed raafic Allah jirto ama maajin Allah jirto lacagtu waxa weeye alqarru yajru kullu manfa'atin yajru fiha qard kullu qard yajru fi manfa'ati waxa riba meel oo ka tusa sheekh wuxuu leeyahay xaraam waay sheekh waxa doonaa inuu qaybta kala aado qaybta xaaraanta walidalika bilaal markuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri bi'tu waxaan gaastay laba saacayn oo min tamir radi'a ayaan gaday markaas mid cusub oo fiican ku soo gatay nabiga calayhi wuxuu taas aynu ribo laakiin wuxuu yiri bi'r radi'a wuxuu sheegay wuxuu yiri قدن لعقت كسو قاضو كسو بدلو marka ribada iyo xalaash iyo xaraanta wax yar u dhaxeeyo iyo xalaasha qofku markuu hadaba inuu dadka ahlu khayrka oo dadka ahlu takhasuska dadka ganacsiga yaqaan oo business kan ku dhex jiro inuu fatwada markuu fatwoonayo ka dhigto laakiin nin oo wax loo soo sheegay inuu sheekh wax ka dhigaysto soo xukunku u dajiyo waxa la doonayaa inuu yiraahdo arintan ayaa ku takhasusay oo dadkaas loo aado oo yiraahdo sida mas'alada qalliin ee markay mas'uul dhakhtarku u aadayo oo dhahayo war arintan fatwo ka bixi kari ilaa dhakhtarka yaqaan maxay tahay dararkeeda maxay dhibkeeda aan weydiyo dadka ganacsatada oo business ka soo baxay oo shahaadada jaamacada business ka wato ama tajriibada ku sameeyay ayaa walidalika maanta aniga dadaan caaw nin walaalan warsanay arrimahan ka shaqeey iyo dad badan baxsiga buxuusta ay mas'al buxuus ay sameeyeen baxus la sameeyay waxa la ogaaday dhinacay dadka culimada ka xaaraantimay inay dhinac kale xalaal ay jirto oo islaamiga ah oo nidaam ah sida arkaysan ba sheekhu wuxuu ka sheekeeyay in marka barnaamij noocan oo kale laga hadlayo ee ay tahay in ummadda islaamka loo cadeeyo shay sababta oo xaraan yahay ama oo xalaal yahay waxa laga marmaana qofka wadaadka ama sheekha ee fatwoonayo inuu xaqiiqada sheekada raadiyo xagee buu ka raadinayaa in dadka waxaan ka shaqeeya ee dhaxgalay ee xirfada u leh uu soo wareysto sheekhu waxa uu hadalkiisa kamid ahaa marka arintan aan ka hadlin koor waxaan wacay oo la xiriiray biiraahday dad aan aqaano oo suuqan ku jiro ka shaqeeya kadibna waxay u sharaxay sheekha sida ay wax kan u shaqeeyaan kadibna wuxuu ku dabaqay oo uu ku fiiriyay shariicada islaamka ay soo bani waxa ay ka qabto sheekadaas sida marka laga hadlayo ganacsi ama wax ku saabsan mawduuc lacag lagu faa'iideeyo diinta islaamku waxa ugu weyn oo ay ka duuleyso marka lacag la faa'iideeyo waxa weeye in la iska ilaaliyo ribada oo ribadu waa mawduuc aad u xasaasiya hadaa qof islaama ku durtid oo ku tiraahdo riba cuntaana waa qofkaasi waxaad ku tiraahdaa dambiile weyn baa tahay marka sheekhyada ama culimadu waxay ka fiirinayaan wax riba waxaan ma soo galaysa waxa laga yaabaa inay istiraadaan sheekhyada Yurub jooga oo awalba cayrta cunayay oo iyagu ma garanaysaay Yurub ku noolaa wax kan xaqiiqadiisa ma sheegayaan balse culimo kale oo fara badan baa jirta oo waxa kan soo baartay xaqiiqadoodana soo ogaatay waxa kamid ah sheekh la yiraahdo Sheekh Xasan oo jooga Nairobi oo isla su'aashan oo kale isagana la weydiinayo isagoo ku salaynaya baaritaankii uu isagu baaray isagoo ka eegaya shariicadu waxay ka qabtana hadalladiisii waxa kamid ahaa iyo meeshii uu ka eegay aynu isla fiirsanaa isagana inta aniga ogaalkayga baaritaan kooban oo ku sameeyay waxaan ku qoonsado diineed ma arag
waxaan ku qoonsado diineed ma arag waxa hadda lagu jiro waa sarif hawada iyo nadka ah mar haddii lacag la isku sarifayana waxa la isku ogaa waa in la helo taqaabud fil majlis markaa wixii la kala qaato labada shay hadday isku mid yihiin isla eg yihiin hadday kala duwan yihiin la kala badsan karo soo sidaa ma ahayn inteeda kale oo dhan markaan baaray aniga aqoontayda gaaban wax dhiba kuma arag oo markaad adigu hadan nadka wax ka iibsanayso ee khadka wax ku iibinayso saad u taabatid oo ugu dhufato okayba sarifkii automatic ah ku soo fulay shaashadaada akoonka ku furaabayna kugu dhacaysa wax marka taqaabud xukmi ah ayaa la oran karaa ninkii aad ka bedelatay eed ka gadatay beeci kama noqon karo anna kama noqon kartid aad taabataba wixii aad dalbatay ee yan ah ama euro ah ama dollar ah baa screen ku soo fuulay shilinkii adigu aad bedeshay dirtayna nin kale u dhacaya halka adoon ka dhaqaaqin sikin xataa ma aha waa farta asi taabaraysaba si automatic u kala wareegaya adoo calculator taabtay markaas u taabto xisaabta miiska soo fuulmayso sida oo kale way jeegi la qorayay ee laga tasdiiqiyay bangiga ee baad ahli cilmi waxay yiraahdeen wuxuu ka dhigan yahay taqaabud buu ka dhigan yahay kana ka daqiiqsan kana degdeg badan in taqaabud xukmi ah laga dhiga midka oo la yiraahdo labada nin qaabka wax kala sariftay khadkaas iyo online ka wax kala sariftay way kala qibdoodeen xukman wa arin aniga aad ila quman way culimo badan oo mucaasirna way marayaan ishkaalka kaliya wuxuu ku jira xoog dhib ruux kala kulmaya hadhow markuu doono lacagta inuu cadaysto central bank iyo bangiyada weyn ee dadka yararka localka lama xisaab uma tagi karaan jeeblaya yararka uma tagaa niman waaweyn oo broker ayaa meelaha fadhiya kuwaas khidma kaasi qaadan oo bangiga kaaga soo cadayn inta yareed ku soo dhacday dhibka hadii laga badbaado taana hadii khiyaanada asagu sameeyay ujra lagu shiiyo hawsha uu qabanayo way banaan tahay dhibka u badnaay ahaa ee ribada laga baqaayay oo cadam taqaabud fi majza meesha kuma jiro waa laga badbaaday lacagu hadii kala duwan yihiin waaba la kala badin karaa fabiicu kayfa shiitum ila kana yadan biyadin labada maxduura oo ugu dareyd oo ribada ay ka iimaneysay hadda intaan ka warqaba hawsha sarifka online ka uu ka badbaadaya وهاك شيخ سيدا هذا الكيس مقلسين با وحو نحر كيس كسو غبغبيي قodobadii riba ahaan keeni lahaa ee waxa kan lagu tuhumi lahaa intaan ka warqabo kuma jirto waa banaanta waa laga shaqeysan karaa halka marka marayo sheekadeedu waxa ugu fudud inaan ku yiraahdo hadii sheekhu mulu forex xaraan ka dhigay sheekhyada kale xalaasha ka dhigay warqooda raacaya balse waxaan ogahay dhalinyarada forex ka shaqeysata ee ku jirta in iyagu already og yihiin in wax kan xalaal yahay balse muuqaalkan dheer waxaan u duubayaa oo sheekha hadalkiisa aan u soo qaadan doonaa in aan qancino dadka waaridka waalidiinta waaweyn macallimiinta dad iyagu waxa weeye dadkan forex ka shaqeeya noloshooda kale ku jira iyo shacabka kale iyagu aan forex soo galay ma aha inaan forex soo gashay ujeedka videoga loo duubayo ee waa in qofka forex ku jira ee ka shaqeysta uu ka amaan helo adiga oo aad ogaatid waxa kan inuu yahay wax xaqiiqa hadaba haddii aynu ka nimaano culimada forex dhinaca ka eegay ee xalaasha ku sheegay waxa jira sheekh la yiraahdo sheekh Umar oo Nairobi Kenya jooga oo isagu yiri waa xaraan waxa jirta muuqaal dheer oo muxaadaro dhan ahayd oo uu sheekhu mawduucan gaar uga dhigay si uu ugu falanqeeyo waxaan muddo daawanayna intaan muuqaalkan sameyn ka hor muxaadaradii sheekha dabcan barigi uu muxaadarada soo saaray isla markiiba waan ka hadalnay waxa uu sheegay sheekhu iyo waxa aan ka shaqeyno inay kala duwan tahay waan sheegnay waan sharaxnay balse dadka intii rabtay inay fahamtay oo markaas ay fahamtay iminka waxaan fahamsiinaynaa inta hadalkaas aan ku qancin waxaan tartiib u dul istaagi doonaa qodobada uu sheekhu ka hadlay marka uu forex ka hadlayay ee uu yiraahday qodobadan dartood ayaa waxa la yiraahdo ay forex khalad ku tahay haddaba laba midkood weeye in dadka sheekha u waramayay aysan iyagu horta forex ba aqoon dadka sheekha u waramay yiri sheekha wax forex la soo baxay kaalay ka hadal dadka yiri ayaga horta forex aqoon ama warbixin khaldan bay siiyeen ama researchka dadka suuqa sameeyay
sheekh dadka researchka iyo cilmi baarista la sameynayay ayaa shaqo fiican qaban sababtoo ah muuqaalkii uu sheekhu duubay internet ku dhex yaala maaha wax been laga abuuranayo waxyaalaha uu ka sheekeynayo iyo forexka aan ka shaqaynana shuqul iyo shaqal toona iskuma laha haddaba waxaa jira qodobo badan oo khaldan ama si aan sax ahayn loogu sheegay sheekha waxaa ka mid ah qodobka koowaad ee ah sheekha hadalkiisa ka mid ah ee uu ka sheekeynayo horta forex meesha ay ka dhacdo sheekha oo rabo inuu noo sheego suuqan forex trading meesha uu ka dhaco marka uu dhacayo ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa bal aynu daawano waxa uu dhaho sidaasaa lagu itlaaqa waxay inta badan ka dhacdaa waxa loo yaqaano suuqa caalamiga ah ee sarifka lacagaha waana suuqa loo yaqaano stock exchange-ga la yidhaahdo waayo stock exchange waa suuqa caalamiga boursa la yidhaahdaa muxuu ingilish ahaana waxaa lagu yidhahdaa stock exchange-ga caalamiga ah ayaa inta badan ay hawshu ka socotaa ama ay ka dhacdaa mucaamalada noocani ma aha kama hadlayno hadda ganacsigan caadiga ahee dadka caadiga suuqa sarifka ay ka ganacsadaan ee lacagaha isdhaafsadaan ee dollarka iyo shilinka la isku sarifay oo isi lala kala wareegayo ee tooska ma aha tan hadda ka hadlayno midaan ka hadlayno waa sarifka ka dhacaya suuqa caalamiga ee stock exchange-ga la yidhaahdo ama boorsada la yidhaahdo ka dhacaya waa sida aad muuqaalkan ka arkiseenba runtii waa nasiib darro in sheekha aan warbixin saxa la siin forex trading iyo stock market waa laba mawduuc oo boqolkiiba boqol kala duwan waa laba suuq oo boqolkiiba boqol kala duwan forex tradingna kama dhex dhacdo stock marketka shaqana kuma laha isku nidaam iyo isku sina loogama shaqaysto okay waa qodobka ugu horeeya ee sheekhu ku khaldiyay isku waxna lama iibiyo marka stock market la joogo iyo marka forex trading la joogo waxa laga kala ganacsanayo wax shaqo isku leh ma dadka sheekha researchka la sameynayay meesha ugu horeysayba horta way ka khaldeen inta aan anigu ku sharaxin stock market iyo forex trading waxay ku kala duwan yihiin bal aan ku tuso sheekh kale oo carab ah oo TV carabi looga hadlayo isla su'aashaas kale la weydiiyay deetana marka hore kala saaraya forex trading iyo stock market waxay kala yihiin mid walba sifada uu ku xalaaloobi karo iyo waxa uu ka fiirinayo aynu isla fiirino ما حكم البيع والشراء في العملات وفي الأسهم أما البيع والشراء في العملات بحيث أن مثلا الدولار نزلت قيمته فجئت واشتريت 100,000 دولار مثلا اشتريتها مثلا ب 350,000 درهم مثلا ثم بعد ذلك ارتفع الدولار فبعتها ب 360,000 درهم هذا جائز ما دام أني أقبض يعني أني أسلم المال وأقبض 100,000 دولار يعني يكون في نوع من التقابض في نفس الوقت فهذا جائز لا بأس به أما بالنسبة لبيع وكذلك في بقية العملات التجارة بها جائزة إذا كانت في تقابض أما بالنسبة لبيع الأسهم فهو يختلف باختلاف الشركة التي تشتري منها إذا كانت شركة مباحة العمل مباحة النشاط مثل شركة زراعية شركة عقارية شركة صناعية بتروكيماوية شركة نفطية إلى غير ذلك فهذا لا بأس لما تكون الشركة مثلا قيمتها مليار وهي عندها مثلا 1000 سهم معنى ذلك أن السهم قيمته مليون فأنا لما أملك منها 5 أسهم ب5 ملايين معناه أني ملكت من هذه الشركة جزءا مثلا ملكت مثلا 0.5% من هذه الشركة ففي مثل هذا الحال جائز إذا كان نشاطها شرعيا أما إذا كان نشاطها غير شرعي شركة ربوية أو شركة تعمل بالخمور مثلا أو نحو ذا أو تعمل مثلا بالآلات الموسيقية أو نحوه فإذا كان النشاط محرما فلا يجوز لي أن أساهم فيها لأني سأكون يعني أملك جزءا من هذه الشركة التي تعمل بنشاط غير مباح أصلا sida arkiseen sheekhan uu sharaxay waxa la weydiiyay ma banaan tahay ka shaqaysiga forexka iyo stock marketka sheekhu wuxuu kala qaaday wuxuu yiraahday forexka hadii aan ka hadalna biiro oo ah in lacagda leeyahay lagu sarrifo dalka lacagtu leeyahay iyadoo online ah hasaatee wuxuu yiraahday hadii ay uu qabdi meesha yimaado ama kala wareejin toos ah ay meesha timaado oo uusan jirin waxa la yiraahdo nin miis fadhiyo idin dhaxeeya adiga iyo suuqii ama adiga iyo qofka wax kala wareegsanayseen waa xalaal sida saxda ah waxa la yiraahdo taqaabudka gadaal baan kaga hadli doonaa iyo taqaabudka forex shareecadu waxay ka qabto
sheekh umar laftirkiisa oo ka hadlayna waan tegi doonaa hasaatee qodobka hore ee forexiska intaasoo sheekhu kaga hadlay qodobka labaad wuxuu kaga hadlay waxa la yiraahdo suuqa saamiyada ama shareska waxa loo yaqaan ama stock marketka oo ah in sharikaadku waaweyn ee adduunka ka jira aad iyaga share ku yeelato wado iminka yiri oo kale shirkadda Facebook ama shirkadda Amazon ama shirkadda waxa la yiraahdo Apple oo kale ayaan waxa ka iibsanayaa share intaasoo percentage ah marka forexiski sida ma garanaysaa loo kala gato lacag hiblaayo lacagta dollar oo intaasoo qiimaheedu tahay baa soo gadanaysaa meeshii la oranayay kan waxa gadanaysaa shirkad hiblaayo ayaa qayb kamid ah gadanaysaa deetana waa haysanaysaa waxaad sugaysaa inta qiimaheedu kor u kacayo qiimaheedu markuu kor u kaco oo shirkadaasi siyaado ayaad iska sii iibinaysaa shirkadaha Soomaalida aan soo qabsan la yaqaano caanka maxaa kamid ah xawaaladaha dahabshiil oo kala soo qabso wada yiri dahabshiil ama hormuud ama golis oo kale baan share ka gatay shareka aan golis ka gatay ama hormuud ka gatay ayaan haysanayaa marka qiimahiisu ii kacana waa iska sii gadaya horta stock la sheegayo waa saas ma ahan suuq forex u dhow ma ahan suuq xataa ay isku level joogaan forexku waa suuqa dunida ugu baaxadda weyn oo maalintii laga sameeyo wax ka badan 5.3 trilyan oo dollar isdhex marto stock market kana inta aan ogahay iminka 22 bilyan oo dollar ayuu joogaa marka waa laba mawduuc oo aad u kala duwan waxay ahayd dadka sheekha fahamsiinaya forex inay ku dhahaan forexku waa platform iyo system iyo nidaam ka duwan stock market waxyaalaha kale ee runtii la yaab kale ee aan sheekha sida fiican loo fahamsiin waxa kamid ah sida suuqan loogu biiro ama lacag loola galo marka lagu soo biirayo ama marka ugu horeysa ee uu qofku suuqan soo galaya isagoo sheekhu sharaxaya isla qodobkaas hadda aan ka hadlayo ah marka qofku uu forex soo galayo bal hadalkii uu muxaadarada ku sheegay aan idin daaro haddaad rabto marka inaad ka ganacsato waxaad u baahan tahay in aad bixiso qayb ka mid ah lacagta aad rabto inaad ku ganacsato ayaad dhiibaysaa lacagta aad dhiibtay waxaa la yidhaahdaa haamish baa la dhahaa haamish ingiliishkana waxaa lagu dhahdaa margin baa lagu dhahaa yaad u dhiibaysaa intaadan dhiibin internetkaad gelaysaa account baad furanaysaa accountka waxaad ka furanaysaa shirkad ka mida shirkadaha accesska u haysta inay suuqaasi ka ganacsadaan sheekhu wuxuu yiraahday marka aad forex ku soo biiraysid lacag baad dhiibaysaa kamid ah lacagtii aad ku ganacsan lahayd waxaadna siinaysaa shirkad kamid ah shirkadaha suuqan ka shaqeysta lacagtaas magaceedana wuxuu ku sheegay hamish ama gadaal wuxuu ka oran doonaa margin qodobkaasna runtii waa qodob 100% khaldan sida suuqa loogu sheegay aan ahay forex marka aad ku soo biiraysid brokerka account baad ka furanaysaa brokerka sidoo u qeexo sheekhu gadaal baan ka tis doonaa sida saxda ah brokerku yahay account marka ka furatid lacagaad adigu leedahay ayaad brokerka account ka dhiganaysaa brokerkii ma siinaysid lacagta isagu ma qaadanayo meel lama tagayo iminka hadaad Premier Bank ama Salaam Bank account ka furatid deetana koontada Salaam Bank ka furatid $100 ku shubatid $100 maada leh mis Salaam Bank ma leh adigaas kale Salaam Bank ma leh ama Premier Bank ma leh marka aad ma kala bixi kartaa $100 Premier Bank ama Salaam Bank of course waa kala bixi kartaa sidaas si lamid ah brokerka lacagtii aad ku shubatay account-ka aad ka dhex furatay isaga marka rabtid baa kala bixi kartaa adigoo wax trade ah gelin sheekh laakiin waxa loo fahamsiiyay in qofka lacag marka hore uu meesha dhiganayo lacagta qayb kamid ah laga qaadayo oo uu u bixinayo waxa la yiraahdo margin ahaan gadaal baan ka sixi doonaa marginka iyo leverage-ka oo 100% iskaga dhex khaldan sida sheekha loo fahamsiiyay balse isagoo brokerka qeexaya aan fiirina mar labaad sida uu qeexay طيب shirkadaasi waxa shartiya inay haysato ruqsad haysato loogu ogol yahay suuqa inay ka ganacsato طيب waa inuusan raasamaalkeedu uusan ka yarayn xad muayyan yani saqfi muayyana raasamaalkeedu waa inuusan ka yarayn waa in hay'adda suuqa maamusha ay ka hayso damaanad bangi sheekada kale oo cajiibka ee runtii aan aamini waayo ilaa konton jeer ka badan ku celcelina waxa weeye inuu sheekhu leeyahay brokerku waa in ay damaanad ka haysato damaanad bangi buu waliba leeyahay ka haysato hay'adda suuqa maamusha waxaan doonayaa inay ii soo weydiiyaan dadka sheekha garanaya hay'adda suuqa maamusha waa tee suuqa kani hay'ad ma maamusho qof bini aadan oo maamula ma jirto
waxaa fiicnaan lahayd in loo geeyo buugga af Soomaaliga ku qoran ee aan anigu forex ka qoray si sheekha loo fahamsiiyo ama inuu internetka intuu galo soo baaro forex meesha ka soo farcantay war suuqa kan forex inuu ku jirno ma aha wax ay cidi maamusho lacagta warqadda ah ee aynu maanta haysanno qiimaheedu wuu isbedbedelaa hawadaas ruuxi haabaya cid jaangoysa ma jirto shilin Soomaaliga saaka intuu ahaa galabtuu iska bedeli karaa doolarku maanta intuu ahaa caawu iska bedeli karaa cid maamusha ma jirto haddaba brokerku waxa jira organizationno ama shirkado siiyo shabado ama siiyo aqoonsiyo ma ahan kuwa iyagu suuqa maamula ee waa kuwa dawladaha dalalka ka dhisan tusaale ahaan reer Yurub oo dhan waxay leedahay wax u qaabilsan inay brokerada sharci siiso سنانو كله وحجرت سيبرس ميت كتالا وإيشيا ونسيسا بس تاس معناه ماها بروكر كهدو ماشى شرعي كايسن وايو إنه سن بروكر أحين تا معناه ماها سببته بروكر ده أدونك هو وين أورن أمريكان كانوا جاي استعماله وح شرعية ما هيستان وح شتية ما هيستان سببته الشتية على الشيء يشوف لي واحد بحية هاي أدب ما مش السوق ولا خلد سيدا اسمها هي شتية ده وحكوا ده regulation regulation broker kana waxa siiya waxa la yiraahdo waax ama shirkad waxa la yiraahdo dalkaas ku salaysan ama qaaradaas ku salaysan salahaan oo kale ingiriiska oo kale UK waxa jirta hay'ad ay dawladda UK u xilsaartay inay brokerada shatiga siiso taas micnaheedu ma brokerka ay shirkadda u diido inay UK laga isticmaali karin because meel kale shatiga ka soo qaadan kara kuwa badan oo waxa jira broker weyn oo Mareykanka ka jira oo 2011 ilaa hadda aan wax shatiya haysan baa jira marka horta waxa si khaldan loo fahamsiiyay sheekha in suuqa kaniba ay hay'adi maamusho oo ay meel ku haysato ay cid rabtana u ogolaan karto cid rabtana broker ahaan ugu diidi karto inta aanay ka gudbin mawduuca brokerka sheekh waxa la fahamsiiyay waliba si khaldan loo fahamsiiyay waxa loo yaqaan leverage-ka oo uu ku sharaxayo clipka soo socda markaas kadib baan leverage-ka iyo waxa la yiraahdo margin-ka idin kala saari doonaa waxa uu yahay account-ka markaad furato oo brokerka ama shirkadda wasiidka ah aad ka furato oo lacagtii aad ku ganacsanaysay rabtay in aad faa'iidada ka hesho qaar kamida aad ku shubto $100 $10 10 waxay noqotaba brokerka aad lacagta u dhiibtay aad account-kiisa ku shubtay lacagtaadu waa yar tahay waxbuu kuugu darayaa ma 10 goor baa lagu laban laabi ma 100 goor baa lagu laban laabi qasab way in wax lagu daro say suuqa u gasho sidaas daraadeed hadii aad mesela $100 meesha dhiibatay 10 goor hadii lagu laban laabo wuxuu ku darayaa meeqa 9 buu ku darayaa hadii 100 goor lagu laban laabana meequu ku darayaa 99,000 oo dollar buu ku darayaa lacagtaas waxa la leeyahay adigii waxoogaaga meesha gashaday ayaa lagu deymiyay ganacsi bayna kuugu jirtaa sheekada cajiibka ah ee runtii u baahan in la fahamsiiyo sheekha iyo culimada waxa ka rabta inay ka fatwooto waa qodobkan sideedaba horta forex dadka shacabka ah ee aniga iyo adiga oo kala waligood kama aysan shaqaysan jirin waxa inoo fududeeyay waa brokerka oo ah qofkii u dhaxeeyay aniga iyo suuqa ama shirkadii u dhaxaysay aniga iyo suuqa ma jirto lacag caadiya oo uu brokerku leeyahay oo adiga ku amaahinayo farta ka saaray bal waxa taa ka horeysa in la doonayo inaad fahamtid anigu markaan maanta Canadian dollar iyo New Zealand dollar kala bedelayo Canadian dollarna ma arko New Zealand dollarna ma arko laakiin bangiyadu iyagu markay kala bedelayaan caadi bay Canadian dollar u gataan New Zealand dollarna caadi bay u gataan oo iyagu lacagtii bay hayaan ay ku gadan lahaayeen annagu maxaan sameeynaa annagu brokerka dhexdiisa ayaanu ka shaqaysanaa oo ganacsato kale oo anigoo kala oo waxa weeye $100 iyo $10 wadata ayaa isla brokerka dhexdiisa adeegyadii isagu uu soo gatay hay'adihii lacagii kala duwanaa ee dalalku isagu soo gatay ayaanu maal gashanaa oo $50 aan wato ee anigu aan la imi suuqa ayaan $1 oo kamid waxaan ku maal gashanayaa lacagta Ingiriiska ama lacagta Mareykanka ama lacagta New Zealand ee micnaheedu ma aha inaan qof New Zealand jooga aan anoo Soomaaliya jooga aan dollar u sarifayo
ama qof Japan jooga aan anoo Europe jooga aan euro u sarrifaya macnaheedu maaha qodob koowaad ee haddii la fahamsiin lahaa sheekha uu fahmi lahaa sida suuqa u shaqeeyo horta waa kaas qodobka labaad ee mawduucan ku saabsan leverage-ka marka laga hadlayo oo isagu kelmad af carabiga ku sheegi doono ma ahan sida sheekha loo fahamsiiyey leverage-ku ma ahan lacag kaasha ama lacag kirdhida waxay rabtaa ahaatee ee adiga lagu siinayo leverage-ku waa adeeg uu brokerku kuu fidinayo waa awood uu brokerku kuu siinayo in $100 uu trade gareyn karo ama uu geli karo akoonno ay ka trade gareynayaan $10,000 dad wata okay marna ma aha lacag caadi oo kaash oo laga qaadayo sheekhu wuxuu leeyahay waa lacag waxa la yiraahdo adiga deyn ah oo ganacsi kuugu jirta ya ii shaqeynaya aniga ganacsi ii haya ya ganacsiga ii galayo iigu jira waxaas la fahamsiinaya sida loo fahamsiinaya maaha haddaba marginku waxa la yiraahdaa leverage-ku maaha lacag caadi oo adiga lagu siinayo balse sheekada nuxurkeeda waxa fahmi doontaan qodobka ku xiga ee ah leverage markuu sheekhu sharaxayo waxa uu dhahay baldhageys lacagtaadii isku ilaalinaya deynta uu ku siiyay buuna ku ilaalinayaa si ayna lacagtuu bixiyay ku deymiyay marnaba khasaaro ugu imaanay sheekada ugu la yaabka badan tan weeye sheekha waxa loo fahamsiiyey in leverage-ku ay tahay in adiga lacagtaada lagaaga qaato oo leverage-ka lagu siiyo oo haddii aad leverage-kiisa gubtid adiga lacagtaada la qaadanayo balse saas maaha waa saas lidkeeda weeye haddaba inta aanan ka hadlin leverage-ka iyo margin-ka iyo lacagtaan anigu dhigto brokerka iyo aniga midka loo danaynayo iyo midka la dhacayo midka khasaaraya iyo midka faa'iideysta aanu ka hadlin bal aynu fiirino sheekha oo sharaxaya lacagta anigu aan brokerka dhiganayo magaceeda sheekha oo sharaxaya lacagta anigu brokerka aan dhiganayo sida ay u shaqeyso iyo hawsha ay ii qabanayso kadibna waxa isku dayi doonaa xaqiiqada dhabta ah iyo sida suuqa looga shaqeysto in ay idin sharaxo bal sheekha aynu wada daawano lacagta aad gashatay meesha haamishka la yiraahdo ama aan margin baa la yiraahdaa waxay ahaanaysaa rahan oo bangiga ama brokerka aad la mucaamalootay baa haysanaya ilaa xisaabtaadu intay soo xidhanto wixii cadaado waxooda ka goostaan aad kala baxdaan waqti ay noqotaba hawshaas iyaga gacanta ugu jiraysa waa rahan rahanta maxaa la yiraahdaa waa curaad lacagta lagu deymiyay suuqa gashay yaa khasaaro looga baqayaa lacagtaadii marka aad meesha dhigatay waxay rahan u ahaanaysaa inay ilaaliso khasaaraha ku imaan kara lacagta lagu deymiyay khasaarahaas ay ilaalinaysaa saas daradeed waa arki doonaa markii khasaaro ay dareemaan lacagtaadii baa markaba lagu boodaya qofka sheekha wax fahamsiinaya meesha ugu weyn khaladka ugu weyn ee sameeyeen halkan weeye wuxuu sheekhu leeyahay lacagta adigu brokerka aad dhiganaysid margin baa la dhahaa buu yiri lacagta brokerka dhigatay waxay rahmad ka tahay lacagta leverage-ka ah ee lagu siin doono waxaana loogu talagalay in haddii lacagtan lagu siiyey aad gubtid iyada wuxuu ka dhigayaa lacagtii leverage-ka inay tahay lacag lagu siinayo oo ku shaqaysanaysid si lacagta lagu siiyo ugu shaqaystina lacag kale meel dhiganaysid haddii ay gubato ayaa tan lagaa haysanaya oo waxaa loogu talagalay rahan iyo adiga damiinka ahaato lacagta anigu brokerka aan dhiganayo margin lama yiraahdo equity baa la yiraahdaa lacagta anigu aan dhigtay ee deposit-ka ee anigu brokerka aan ku shubtay equity baa ku qoran ama deposit baa la dhahaa ama account deposit baa la dhahaa lama dhaho marginku waxa weeye leverage-ka lacagta lagu kabay inta ratio-da ah ee weli ii nool okay lacagtayda soo anigu ma dhigan akoonka lacag deposit oo $100 boqolkiiba dollar wuxuu isiinayaa awood intee leeg ayaan ku isticmaali karaa awoodaydaas inta hadba joogta ayaa margin la dhahaa dadka trade ka shaqeysta waxay garanayaan margin levelkaagi hoos buu dhacayada lagu leeyahay oo maxaa laga wadaa leverage-kii aa haysatay ayaa yaraanaya waxaa dhici karta sometimes inuu trade kuu furmi waayo sababtoo ah margin-kaagi baa dhammaaday marka horta marginku marna maaha lacaga aduu leedahay oo meesha aan la gelis waxa weeye waa leverage-ka lagu siiyey ama awoodda iyo adeeggaa lagu siiyey inta ratio ahaan uga dhigmata akoonkaaga okay waxa jirta wax la yiraahdo margin level iyo marginka caadiga ah haddaba marginku maaha lacaga adigu brokerka dhigatiyo waa lidkeeda waa waxa uu adiga brokerka kugu saacidayo okay
ووحى وأديك بروغر كوسا إذا كوف ضينسا إن تريدي وين قشيد وأيضا أينو أردنا إن مارجنكو وكهر بابا وحلا يراد إكويتي جاga lacagta equity-ga anigu aan suuqa dhigtay ama deposit-kayga ah iyo margin-ka la siiyay ee lagu taageeray ee waxa la yiraahdo awoodda ah oo aan haysto margin-ka ayaa ka hor baabaa equity-ga inta waxa dheer oo kale oo si khaldan sheekha loo fahamsiiyay sida forex lacag looga faa'iido iyo lacagta la faa'iidayo meesha ay ka imaanayso laftirkeeda ayaan bal la fahamsiin sheekha bal aan fiirsano isagoo sharaxaya sida forex lacagta looga faa'iido dollar way lacagta sarif baad gelisay euro baad ku bedelatay euro markaad ku bedelatay waxaad sugaysaa maxay suuqa euradu inay kacdo sooma kadibna aad rogto kadibna aad lacagtaad u rogtay sugto intay suuqa ka kacayso farqiga u dhaxeeya lacagtaad gadayso iyo lacagtaad soo iibsanayso farqiga u dhaxeeya way wax la faa'iidayo sidaas maaha waxa la faa'iidayo farqiga lacagta aad gadatay iyo lacagta soo gadatay u dhaxeeya maaha sheekh farqiga la faa'iidayo waxa weeye lacagtan adigu aad trade gareysay ee aad gashay qiimaheedu inta uu isbedelay ama uu kor u kacay ama uu hoos u kacay tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan lacagta US dollar soo gato lacagta US dollar marka aan soo gadanayay haddii halkii US dollar uu 1 euro u dhigmayay waxaa la fiirinayaa 5 saac kadib markaan trade-kan ka baxo halkii US dollar intee u dhigmaya waxa anu aan faa'iiday marka waxa weeye isbedelka qiimeed ee ku yimi lacagta US dollar waa adigu iminka magaalada Muqdisho guri ka gatay guriga aan magaalada Muqdisho ka gatay ayaa waxaad sugaysaa inuu qiimihiisu kor u kaco qiimihiisu markuu kor u kaco isla gurigii baad iska iibinaysaa ama qiimihii uu kugu fadhiyay markaa gadanaysay qiimo ka weyn buu kugu fadhiyaa markan micnaheedu maaha farqiga lacagta iyo guriga u dhaxeeya inaad lacag ka sameynaysid halkaas markaynu ka nimaano sidoo kale waxaa sheekha si khaldan loo fahamsiiyay waxa loo yaqaano margin call-ka oo la xiriira qodobka hadda aan ka soo sheekeynay ee ah leverage-ka uu suuqu kugu taageero brokerku iyo lacagta deposit-ka ama equity-ga ee adigu aad broker ka dhigatay waxa jira wax loo yaqaano margin call oo ku sheegaya wixii adiga ku ilaalinayay inay meesha ka baxeen oo ay khasaaro kugu soo socoto adiga balse sida sheekha loo fahamsiiyay mowduucaas aan dhageysano marmar baa marka waxaa dhici karaysa intaad yuuradii iibsato yuuradii meeshii la sugayay inay suuqa kacdo inay dhacdo maxaa la samaynaa marka waxay fiirinayaan qoladan brokerrada aad wax u dhiibatay waxay sugayaan dhicidda ay dhacday yuuradii dhacday soo khasaaro ma imaanin ayib khasaaraha yimid laba mid waaye haddii uu raasamaalkii aad meesha dhigatay halis gelin karayo markaa waxay samaynayaan way kula soo xidhiidhayaan waxay leeyihiin raasamaalkaagii khatar buu galay intaasaa isdhintay soo buuxi waxay yidhahdaan margin call bay yidhahdaan waa emergency markaas ama waa inaad buuxiso haddaad buuxin weydo maxay samaynayaan awood baa waxay u leeyihiin caqdigii heshiiska markaa socday jebinayaan way ka baxayaan markay ka baxaan khasaarihii ku soo gaadhay adiga miyaad u simantihiin ma wada qaybsanaysaan maya khasaarihii xoolahaagay ka goynayaan qodobkan runtii waa qodob kale oo aad u xasaasiya oo qayb weyn ka qaadanaya meesha dhan ee uu sheekhu doodan ka taagan yahay marka uu leeyahay margin call-ku waxay ka dhigan tahay in khasaarada dhacday lacagtaadii laga goynayo toodana ay badbaadsanayaan sidaas maaha sheekh khasaarada dhacaysa waxaa laga wadaa already leverage-ka aad lacagta ka dhigaysid wuu gubtayba adigii baa laguu baqayaa waxaa lagu leeyahay war duca qabe lacagtii meesha kuugu jirtay leverage-ka ilaalinayay waa gubtay oo tareerka lagu khasaaray adaa sababtiisana qofku waa xor isagaa tareerka khasaariyay ee broker kuma khasaaray adiga waxaad tiri lacagtan sell baan ku galayaa ama buy baan ku galayaa kadibna waxa laga yaabaa dhinacii khaldana inaad u raacday kadibna tareerkii in lagaga guulaystay oo aad khasaare gashid khasaarada aad galaysid inta aan loo imaan equity-gaaga iyo deposit-kaaga waxa gubanaya waa leverage-ku muxuu ahaa shield buu ahaa ama difaac iyo gaashaan buu ahaa aniga ay ilaalinayay margin call-ku waxaa laga wadaa margin sideeda waxaa laga wadaa sheekh leverage-ka lagu siiyey ratio-diisa
markaas joogta reeshiyadii joogta way dhammaatay baa laga wadaa ee lacagtaadii wax difaacaya ma jireen la soco haddaba marka uu sheekhu leeyahay lacag cusub ku soo shub ama trade-ku waa lagaa xirayaa sidaas maaha lacag cusub hadaa rabtid ku soo shubi maysid trade-kana waa iska xiri kartaa dirina koontadaadii isla koontadaadii lacagtii kuugu hartay ayaad ku sii trade gareyn kartaa adigoo dib u soo korinaya lacagtii aad adigu khasaarisay ayaa dib u soo dhisi kartaa lacagtaadii khasaartay ayaa dib u soo dhisi kartaa haddaba margin call-ku maaha in brokerka lagu badbaadinayo waalidkeeda adaa lagu badbaadinaya maxaa dhici lahaa haddaan margin call jirin haddaan margin call jirin waxaa dhici lahayd $20 ama $50 oo kuu hari lahaa $100 horta wuu guban lahaa kadibna adigaa minus lagu gelin lahaa kadibna maxaa dhici lahayd kadibna waxaa dhici lahaa in hadhow marka akoonkan lacag ku shubaysid uu minus kugu jiro brokerada qayb baa weli nidaamkaa leh axis trader baa u malanaya inuu ka mid ahaa haddii uu margin call-ka aad dhegaysan weydid minus baa ku gelaya maxaa laga wadaa lacagtaada wixii difaacaya meesha way ka baxeen wax difaacaya ma jiraan soo ma marka sida sheekha loo fahamsiiyey maaha margin call-ka qofka traderka ayaa loogu danaynayaa brokerka iyo leverage-kiisa loogu danaynmaya sidoo kale qodobada muhiimka ah ee uu ka hadlay sheekhu forex-kana ku saabsan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano swap-ka oo ah lacagta brokerku uu dul saarsado traderada swap-ku u furan yahay habeen dhaxa waxa loo yaqaano swap-ku waxa uu yahay inaan anagu isticmaalno iyo inaan anagu isticmaalin haba ii joogtee sheekhu bilord siduu sharaxayo aan idiin daaro hal mar si aynu dhammaantiin iskula dhegaysano sarifka aad gashay iyo safqada aad gashay waa inay xidhanto maalin waa inay ku xidhanto maalinku macna waxa weeye waxa laga wadaa 24 saac waa inaysan dhaafin heshiiskii oo iska furani ma socon karo waa inuu maalin xidhmo waxa dhacaysa marka haddii ay dhacdo sicirkii lacagaha eed sugaysay inuu kaco baa meeshaad rabta ma gaadhin waxaad rabtaa maalinka labaad inay safqadu u gudubto marka ama ma ahe khasaaraad dareento markaasaa tidhi maalinka xigaad kaban doontaaye safqadani ha ii furnaato ilaa berri ha ii furnaato suuqa berrina waa ka qaybgelayaayo way ii furnaani marka waxaa la yidhaahdaa waxay qaadanayaan brokerada ama bangiyada aad lacagta u dhiibatay hadduu bangi ama broker yahay wuxuu ku saaranayaa khidmad la yidhaahdo rusuumu tabyiid khidmadda uu u bixiyey rusuumu tabyiid af ingiriiska waxaa lagu dhahaa ama dadka forex ka shaqaystay wuxuu yaqaanaan swap haddaan anagu dad muslimiina nahay waxaan leenahay wax loo yaqaano swap free account ama islamic account islamic account ama swap free account lagu sheegay macnaheedu ma aha wax kale balaayo islaamnimo kale inay ku dhex jirto ee waxa laga wadaa lacagta swap-ka ah ee dulsaarka ah ee uu brokerku haddii trade-ku 24 saac kadib uu sii furnaado uu dul saarsan lahaa annagana lama dul saaro sheekh qof walba oo muslim ahna wuu ogyahay forex-kuna waa mawduuc ay muslimiinta iyo gaaladuba ku jiraan brokerada ugu waaweyn qayb baa Dubai ku yaala qayb baa Kuwait iyo waxay ku yaalaan Bahrain iyo Imaaraadka oo dhan fahmaysa Turkiga ka buuxaan waxay ku yaalaan wadamada islaamka oo dhan bay brokeradu ku yaalaan wadamada islaamka brokerada ku yaala oo dhamina ma isticmaalaan swap-ka annagu brokeradan isticmaalno tusaale ahaan anigu iminka brokerka isticmaalo FX Primus baa la yiraahdaa ardadayda oo dhan oo ilaa 6,000 oo qof ah FX Primus bay isticmaashaa kulligeen waxaanu isticmaalnaa akoon aan swap lahayn why because muslimiin baa nahay qofka muslimkaana waa ka xaraan lacagta dulsaarka ah ee uu brokerku dusha kaasi sarsanayo qodobkaas waxaa la rabay inuu sheekh weydiiyo sidii sheekhi ka horeeyay sheekh Usmaan aan idin daaray oo kale uu dadka weydiiyo war swap-ka idinka miyaa la dul saarsada sheekadani waxay ku noqonaysaa meeshii aan idin lahaa maqaaxi oo dhan haddii la yiraahdo waa xaraan khalad bay noqonaysaa laakiin maqaaxida doofaarka hilibkeeda gada waa xaraan inaad maqaaxida lacag ka shaqaysatid ama weelka ka dhaqdo aad mushaar ka qaadatid laakiin maqaaxi bariis iyo baasto iyo suugo gada haddaad tiraahdo waan ka shaqaysanayaa lacagteedu waa ku xalaal sidaas la mid ah diintu waxa ay ka hadashay marka xaraan iyo xalaal laga hadlayo wax cad ganacsiga cidnama diidana sifada la diidan yahay haddii aad swap qaadatid swap laga qaado oo lagu dul saaro waxa tahay nin brokerka siiya lacag interest oo dul saara annaguna lacagta ma bixino qodobka marka laga yimaado qodobka ugu dambeeya ee uu sheekhu ku dhagan yahay ee uu leeyahay forex waa ku xaraan waa qodobka loo yaqaano kala wareejinta lacagta
marka lacagta la kala wareejinayo ama taqaabudka waxa la yiraahdo taqaabudku waa qodobka ugu weyn ee forex haddii uu qof ku dhigayo uu ku dhigi lahaa sheekhu sida uu u fasiray ayaan fiirinaa kadibna sida saxda ah ama sida culumadii kale ee soo bartay ay u fasirtay iyadana waynu fiirin doonaa kadibna ka soconaynaa sidaan ogsoonnahay lacagaha sarifkooda marka laga ganacsanayo sarifka lacagaha shareecadeenu shuruud bay u dhigtay waana meelaha ugu khatarsan ee ribadu gasho waa hadday lacaguhu kala jinsi yihiin oo laba nooc kale yihiin oo laba dawladood soo kala saareen hal sharti baa shartiga oo ah at-taqaabud waa in la kala qaato ho oo isi taqaabudka laba u qaybsama laba ruux oo is hor joogo ho oo isi oo kala gudooma waxa la yiraahdaa yani waxa weeyaan taqaabud xaqiiqi la yiraahdaa marna wuxuu noqdaa taqaabud xukmi ah oo curfiga marka loo celinaya oo waxay culimadu yiraahdaan lacagahan inta badan muxuu sarifka bangiyada iyo dhaxmada ama muxuu ahay bangiyada ku tacalluqa waxay yiraahdaan suurtagal baaha markaaba hoo isiinay ka dhacdee laakiin waxa la fiirinayaa sida curfiga laba maalmood oo maalmaha la shaqeeyo kamid ah haday sabti iyo xad soo gasho maya laba maalmood oo shaqo ah ayaa curfigu yahay wixii ka dambeeya lacagta in la qaato inta aanan anigu ka hadlin taqaabudka iyo kala wareejinta forexku in ay isla markii dhacdo inaysan dhicin kala toona intaan anigu qeexin oo aad aniga hadalka iga aaminin bal aan ku tuso sheekh kale ama sheekhi aan hadda soo dhageysanay ee sheekh xasaan oo isagu qodobkaas dhahaya ana soo baaray dul istaagay qeexayana bal dhageyso oo markaad adigu hadan nadka wax ka iibsanayso ee khadka wax ku iibinayso saad u taabatid oo ugu dhufato okayba sarifkii automatic-ah ku soo fulay shaashadaada akoonka ku furaabayna kugu dhacaysa wax marka taqaabud xukmi ah ayaa la oran karaa ninkii aad ka bedelatay eed ka gadatay beeci kama noqon karo anna kama noqon kartid aad taabataba wixii aad dalbatay ee yan ah ama euro ah ama dollar ah baa screen ku soo fuulay shilinkii adigu aad bedeshay dirtayna nin kale u dhacaya halka adoon ka dhaqaaqin sikin xataa ma aha waa farta asi taabareysaba si automatic u kala wareegaya adoo calculator taabtay markaas aad u taabto xisaabta miiska soo fuulay mayso sida oo kale way jeegi la qorayay ee laga tasdiiqiyay bangiga ee bacdu ahli cilmi waxay yiraahdeen wuxuu ka dhigan yahay taqaabud buu ka dhigan yahay kana ka daqiiqsan kana degdeg badan in taqaabud xukmi ah laga dhiga midka oo la yiraahdo labada nin qaabka ku kala sariftay khadkaas iyo online-ka ku kala sariftay way kala qibdadeen xukman waa arin aniga aad ila quman way culimo badan oo mucaasirna way marayaan sidaas tabcan oo sheekhu sharaxay taqaabudka marka forex joogno in uu ka shakiyo sheekhu mal waxa sabab u ah wili wuxuu fahamsaneen meesha uu trade ku ka dhacaya wuxuu u qabaa 2 bilood kadib ama 2 asbuuc kadib ama 2 maalmood kadib lacagta la soo diray inay tahay qofkii Japan joogay iyo kii China joogay lacagta kala sarifteen inay faa'iidada iyagu isku soo dirayaan saas ma aha sheekh dadkii forex trade garanaya oo dhan waxay ku wada jiraan internetka dhexdiisa kulligood waxay ku sii wada dhex jiraan brokerka gudihiisa second millisecond gudahood ayuu kala wareeg ku dhacaya oo marka lacagtan gato lacagtan waan gatay oo waan maal gashtay waa gurigii aan gatay oo kale ma celin karo haddaan celiyo oo 5 second gudahood qiimaheedii oo hoos u dhaco ana igu qiimo dhacday lacagtaas marka hore ayaa laga doonaya inaad ka fiirsatid oo cilmigeeda iyo aqoonteeda aad leedahay inta aadan fulin sida uu sheekhu sharaxayana waxay ka tasdiiqsan tahay kuwii ganacsiyada caadiga ee waxa la yiraahdo sheegga la isku diray haddaba sheekhi kale ee carabka ah ee akhbaar koor daarayna isaguna qodobkaas taqaabudka waa isii kaalay hadii laga helo waa xalal waa isii dhacay ugu dambeyn mawduucyada uu sheekhu forex ku diiday ama uu dhalinyarada uga digayo waxa kamid ah uu leeyahay in ay xuriyaaminayso ama ay ka hor imaanayso ama ay dhibaato ku keenayso shaqooyinkii kale ee ay dhalinyaradu ka shaqayn lahayd ay kamid tahay inay beerihii falaan inay waxa la yiraahdo ay ma garanaysaa warshado ka shaqeeyaan iyo waxyaalo la mid ah isagoo sheekhu qodobkaas ka hadlaya hadalkiisii waxa kamid ah balan dhageysan waxa kamid ah khataraha ku jira mashaariic fara badan oo intaaji ah
oo wax soo saar ah inay istaagto mashaariicdii beeraha mashaariicdii kale ganacsiga mashaariicdii maalan warshadaha mashaariicdii badeecada la taaban kare nolosha bini aadamku ku fadhiday baa qarka u istaagaya inay istaagaan say ku imaanaysaa waa laana wax weeye aniga haddaan heli karaanoo meeshan iska fadhiya gurigayga iska fadhiya badeel la qaadanin beerna falin orodna gelin Hong Kong iyo China-na aadin badeecana iyo containerna isku rafaadinin haddaan heli karo intaan account furto oo qolada u dhiibto bishiina aan sugo muxuu ahaay waxoogaa kuusa haddaan heli karo ma beer baan fali war ma beer baan fali mise container baan ku rafaadi oo takhliiskiisa iyo meeshan la ereeriyani mise maryaan soo tultuli dabcan sida uu sheekhu sheegayo ujeed kale ama qodob kale oo muhiim ah isagu xusiyo uu leeyahay forex hal iska daayo waxa kamid ah uu leeyahay in barnaamijyo kale oo bulshada intaaj u ahaa oo ka hor imaanayo ama uu dadka mashquulinayo sheekhu wuxuusan ogeyn maanta inay dunidii tagtay oo cidna badeel qaadan wuxuusan ogeyn beertii 70 qof ay ka shaqayn jirtay hal gabar oo 12 jir ah oo 3 mishiin haysteen ay ka shaqayn kartay wuxuusan ogeyn warshadii 100 qof ka shaqayn jirtay inay 5 mishiin bedeshay وشنطة مشين الشقدي بقول قف قبل جرت إقبالنسو وعسل أوجي شيوخه ورشديه كمنان كل قف كشقينيه حال موتور أما حال أوتوميتد ماشين إنه كشقينيه وعسل أوجي شيوخه لأن يردي جامعة على كبحثي الدجرية ده يا مسترد وذاتي شقله دي أما وحي النورمال كها أي كشقين لهاين إني سوق وما أنت أونلاين دتكي إني أدونك إسبدري وحول بينه أونلاين نقدي شيخ وحسن أوجي دكامدي يبخاردي إني سحريان dadku ka shaqeyn lahaayeen sababtoo ah Amazon iyo online iyo eBay baa soo baxay wish wax la dhaho waa maxay konton bakhaar oo magaalada ku yaalay inuu wax ka gadan mayso sheekh dadka xagee wax ka gadanayaan dadkii Amazon wax ka gadanayaan uu ka raqiisan yahay uu ka nadiifsan yahay uu ka degdeg badan yahay isla markuu loo keenay cashuurta laga qaadamayo dadkii yaa u cida xagee shaqo u raadinayaan sheekh wuxuu ogeyn boqolaal shaqo oo maanta iyo 10 sano la soo dhaafay jiray inaysan hadda jirin حاكمه ما شركتها واوين كاستمر سيرفيس كودي marka maanta shirkad wacdi ee aragtino qof ka qabto ku dhawaan maxaa ka caawiyaa mashiin ba ka qabanaya boqolaal qof ba ka shaqeyn jiray fiiri bangiyada marka hadda tagtid bangiga waxa fadhiyo jiray qof ku sheegaya lacagta waxa la yiraahdo aad u baahan tahay waxaas ku siinaya lacagta imka maxaa sameynaysaa imka waxa tagaysaa birta darbiga ku dhagan lacagtaada waa kala soo baxaysaa intee kuna qof baan ku shaqeeyay boqolaal waxaan ku soo tirin karaa shaqo oo jirtay oo meesha ka baxay dhalinyarada muslimiinta maxay sameynayaan markaas miska deynayaan inay dadkii la socdaan miska deynayaan inay guuleystaan oo shaqo raadiyaan amay haddaba nuxurka warka waxaan ku soo gabagabeynayaa ma jirto aayad quraan ah ama xadiis saxiix ah oo uu sheekhu soo qaatay oo uu leeyahay xadiiska iyo aayadda quraanka darteed ay forex xaraan u tahay hadii amoodis in aanu hadalka ka sameynayo isaga oo afkiisa ka dhaxaya in uusan xadiis iyo quraan uusan soo daliishanayn wax kan ku xaraamtinimeynayo balan dhageysana waxa laga yaabaa inay dadka qaar ku yiraahdaan waa caawo dhan wadaadku Soomaali u nagu daldalay aayad quraan iyo xadiis iyo ma aawi tama Soomaali ba diin noqonahay mas'alada marka laga hadlayo leeyahay waxa shariicada ku khilaafsan tahay waxay ku khilaafsan tahay nas buulay marka naskii ay ku khilaafsan inaan si daba galay waxaan kaga soo gaabsanay inaan tilmaano mukhalafadaas ku jirto mukhalafad labaad baa ku jirta mid saddexaad baa ku jirta mukhalafaadkaasi maxay shariicadu ka qabtay adiladeedu waa tafaasiil siyaad awee waxyaalaha uu mukhalafooyin ku sheegayo waaniga ku soo sharaxay sida sheekhu uga hadlay iyo sida saxda ay yihiin wax shaqo isku leh ma sheekhiyo kale oo sida saxda loo fahamsiiyay iyagu xaraanteeda iyo xalaasheeda ka hadlayana waaniga intusay muuqaalkan waxaan ugu talagalay marka kuma lihi kale adigu forex soo gal kuma lihi kale adigu forex ka shaqeyso waxaan ugu talagalay inaan kugu sheego dadka forex ka shaqeysanaya in ay wado sax ah u mareen fiidiyogan ujeedkan u duubayo ma ahan inaan sheekh gaar ah aan gaar ugu ataagayno fiidiyogan waxa way inaan doonayna xaqiiqada ku sheego maxaa run ah maxaa run ahayn marka uu qofku xaqiiqada helo informationka iyo warbixinta saxdaana uu helo isaga go'aan qaadan kara forex ma jirto aayad quraan ah ama xadiis ka xaraamtinimeynaya ribadu waa wax la isla yaqaan oo aan
humaag iyo been geli karin because waa mawduuc aad u weyn meel ay kaga jirto waxaan aan ka shaqaysanana ma jirto balse sida ganacsi walba uu qofku hadduu shareecada wax khilaafsan uu soo dhexgeliyo oo xaaraan noqon karo si la mid ah haddii aad wax shareecada ka baxsan ah forex soo dhexgelisid ay iyaduna xaaraan noqon kartaa intaas marka laga yimaado qof walba isaga xor ah qof walba isaga aakhiradiisa og iyo meesha ilaahay wuxuu la hortagi doono anigu forex waan ka shaqaystaa kuma dhahayo kaale aniga igu raaco fikirkayga kaga shaqayso bas anu markaan baaritaan igu filan sameeyey culummo aan dhageystay akhris badan aan sameeyey jaamacatul azhar iyo waxyaalaha ay soo saartay aan akhriyey taariikhda aan dib u raacay wadamada islaamka oo waxaan ka shaqaysanaya aan fiiriyey waxa iiga dhex muuqatay fursad ganacsi oo xor ah oo aan lacag ka samayn karo anigoo xirfadeedii baranaya haddii adigu aad doonaysid inaad saas kala samaysid research kuu gaara iyo cilmi baaris kuu gaara waa samayn kartaa waxaan rajaynayaa hadalkayga nuxurkiisa inaad dhammaantiin fahamteen intaan muuqaal dambe ku kulmi doonno dhammaantiin waxaa idin leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh